waxaas xasuusid mudan in sawiradii sanado ka hor aan galnay kuwaasi oo aan haysano warqadahooda isla markaana waxaan jeclaan lahayn in smartphone-adeena aan ku shubano waxaase lagaaga baahan yahay si aad ugu shubato smartphone-kaaga marka hore waa inaad scan saartaa kaba soo qaadba scanka waxaan saarnay 1 iyo 2 wax ka badan ayaan saarnay scanka isla markaana kuwaasi oo dil waxay kaaga soo muuqanayaan hal page ayay kaaga soo muuqanayaan kadib waxaad adiga samayn lahayd mid walbo cropping ayaad ku samayn lahayd maxay waqtigaas badan kaaga qaadanaysaa waxaan muuqaalkan kuugu tusin doonaa kaliya in aad hal meel klik aad ku sido gabi ahaantoobada cropping lagugu sameeyo marka daawasho wanaagsan marka hore markaan soo furano Photoshop-keena markaan soo furano sidaad u jeedo kaba soo qaadba scanka waxaan saarnay 4 sawir ayaan saarnay marka waxaan rabnaa mid walbo in aan asaga weyn ah inaan save gareysano marka hore waxaad samayn lahayd adiga cropping ayaad ku samayn lahayd crop tool markaad soo doorato mid walbo waxaad samayn lahayd in aad asaga cropping aad ku sameyso maxay waqtigaas badan kaaga qaadanaysaa marka hore waxaad tagaysaa file kadibna automate kadibna crop and straighten photo click ayaad ku siinaysaa asaga ayaa wuxuu ku sameynayaa mid walbo asaga ayaa cropping kuugu sameynayo marka hore sidaad u jeedo sawirkan asaga ayaa cropping noogu sameeyay taabkan labaadna asaga ayaa cropping noogu sameeyay taabka saddexaadna sidaad u jeedo rotation ayaa ku jiro sidaad rotationkan aad u toosiso waxaad tagaysaa image kadibna waxaad leedahay image rotation 180 degree ayaad ku dhufanaysaa sidaad u jeedo croppingka asaga ayaa saxayo midkan kalena waa kana sidaad u jeedo taabkii hore waa kan mid walba cropping ayaa lagugu sameeyay taabayadan aad u jeedo mid walba cropping ayaa lagu sameeyay waa intaas uun ka faa'iideysi wanaagsan fadlan hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iideystaan haddaad videogan ka faa'iiday like dheh waad ku mahadsan tahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu